bismillaahi raxmaani raxiim daawaday kusoo dhawaaw garabla t v oo aad uga barateen barnaamijyo xiise leh oo quseeya dhanka arrimaha bulshada siyaasadda iyo caafimaadka. haddaba waxaan barnaamijkan maanta kusoo qaadan doonaa barnaamijkii hirgalay ee daarusalaam city ee bangiga salaam bank uu ka hirgeliyey duleedka magaalada muqdisho. waa fikradaha saliimka ah ee caafimaadka qaba ee ay beesha maxamuud hiraab kusoo kordhisay Soomaaliya. haddaba daawasho wanaagsan. Somali Bank oo 7 guujiirsaday sanadkan ayaa isaga oo la jaan qaadaya baahida dadweynaha waxa uu maalgeliyay mashruuc deegaameedkii ugu ballaaraa ee abid laga hirgeliyo Soomaaliya. xaafadda Daarusalaam waxa ay in ka yar 7 kiiloomitir waqooyi uga beegan tahay garoonka cayaaraha ee Stadium Muqdisho. wadda laami ah oo dhowaan xarigga laga jaray ayaa Daarusalaam ku xirta jidka warshadaha. halku dhigga xaafaddu waa iibso deegaan ee ha iibsan guri, taas oo aan caddayn uga baahnayn qofka gala Daarusalaam. nuxurka halku dhiggu waa in Daarusalaam ay kulmisay dhammaan adeegyadii ay u baahnayd dhismaha ayaa ah waxa ugu horreeya ee indhahaagu ay qabanayaan marka aad gasho xayndaabka xaafadda Daarusalaam. waxaana dhismaha mashruucan oo ay fulinayso shirkadda Buruuj uu ka kooban yahay 2 waji. hal sano bari ugu qaatay in adeega asaasiga iyo 250 guri badan ayaa guriye iibsaday. deegaankiin hadda deegaan ayaa ku bilowday. shirkadda Buruuj oo caan ku ah guriyeynta, dhismaha suuqyada yaryar, noolaynta iyo islaaxinta, dhismaha wadooyinka iyo kaabayaasha ayaa u naqshadaysay Daarusalaam 2 hab oo guriye ah, taas oo macaamiishu ay ka sii kala dooran karaan kan ku habboon baahidooda iyaga oo ka eegaya baaxadda guriga uu ku fadhiyo, qolalka uu ka kooban yahay iyo adeegyada dheeraadka ah. shirkaddu waxay isticmaashaa qalabka culus oo loogu talagalay dhismayaasha nuucyadan oo kala ah sida dabaqyada, filooyinka, dhismaha buundooyinka iyo wixii la mid ah. naqshadda labaad ayaa ah dabaqyo ka kooban 2 biyaano kuna fadhiya dhuldhan 300 oo mitir oo isku weer ah iyo 600 oo mitir oo isku weer ah. waxa ay leedahay iskuul u gaara oo lagu dhiganayo sistamka loo yaqaano A-levelka ee Britain. manhajka iskuulka waxaa ku jira xifdinta quraanka kariimka. sidoo kale xaafaddu waxa ay leedahay isbitaal weyn oo loogu talagalay inuu qaabilo bukaan socodka, lehna qayb jiif kaas oo ay ka howlgalaan dhakhaatiir leh takhasusaad kala duwan. waxa uu leeyahay deegaanku koronto ka jaban sicirka caadiga ee Muqdisho inteeda kale. jardiimooyin waaweyn oo lagu geedaamay doog iyo ubax ayaa ku yaala bartamaha xaafadda. daawadeed dooggaas iyo quruxdaas aad u jeedid waqtigaasi waxay ahayd waqtigii aas-aaska magaalada Daarusalaam ee duleedka magaalada Muqdisho. haddaba waqtigaasi maxaa isbedelay iyo waqtiga hadda ay joogto halkan kaga bago iyadana. beertii waagaas waa meel caalami ah oo quruxdeeda aad cajabayso. waxa ay leedahay meel dabaal loo tago oo duumo yaryar ay dul sabeynayaan. waxa ay leedahay zoo oo xayawaanka noocyadiisa kale ay ku jiraan oo ay dadka u soo daawasho tagaan. quruxdooda innahana ay aad ugu wanaagsan yihiin fiirsashada xayawaankaasi. Daarusalaam waxay noqotay riyadii rumowday dad badan oo waagaas ka iibsaday deegaanka guri ka iibsaday. waxa ay leeyihiin maanta nimco ayaan la kulannay waagaas. ilaah ayaana uga mahadcelinayna.